Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti habboon daawadayaashana qiimaha badan. Halkani waa channelkan Hoggaan Media oo alaba aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay dunida, gaar ahaan kuwooda saameynta leh. Waa 31 March 2026. Qodobada tabinteena aad ku daawan doontaan isla markaana aan ku faaqidi doono waxaa ka mid ah Mareykanka oo la sheegay in bambooyin culus oo dhulka hoostiisa gala ku weeraray magaalada Isfahan ee gudaha dalka Iran. Faahfaahin dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa. Israa'iilna waxay meelmarisay sharci dil toogasho ah ama daldalaad ah oo lagu filinayo Falastiiniyiinta lagu helo weeraro dil ah sababay. Haddaba yaa loo adeegsan doonaa sharcigaas ee daldalaada ama dilka toogashada ah ee lagu fulinayo Falastiiniyiinta lagu helo weeraro dil ah oo sababay. Geesta kale 3 askari oo ka tirsanaa ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa lagu dilay Lubnaan iyadoo duqeymaha Israa'iilna ay si xoogan u garaacayaan koonfurta dalka. Macluumaad dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa. Dhanka kale koronto la'aan ka dhacday Tehran oo ay sabab u tahay waxyeelo gaartay xarun koronto. Qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo kordho ayaan idin soo gudbin doonaa, balse inta ka horeyso haddii uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan like noo saar. Haddii se ay tahay markii kugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena, fadlan marka hore nagu soo biir oo channelka subscribe noo dheh, isla markaana muuqaalka like noo saar, gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan xogaha iyo macluumaadka xiga. Magacaygu waa Hashim Aadam. Ku soo dhawaada mar kale iyo tabinteena. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Haddii aan ku horeyno, Mareykanka oo la sheegay in uu bambooyin culus oo dhulka hoostiisa gala ku weeraray magaalada Isfahan ee gudaha dalka Iran. Sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa u sheegay wargeyska The Wall Street Journal in ciidamada Mareykanka ay garaaceen bakhaar weyn oo lagu keedin jiray hub iyo rasaas oo ku yaala magaalada Isfahan, iyagoo isticmaalay bambooyin culus oo miisaankoodu yahay 2000 oo roodal qiyaastii 907 kg, kuwaas oo loo yaqaano bunker buster bombs. Bambooyin si gaar ah loogu talagalay in ay galaan dhismayaasha adag ama xarumaha dhulka hoostiisa ku jira. Warbixintu waxay timid kadib markii madaxweynaha Donald Trump uu bartiisa ku daawacay muuqaal aan wax faalo ah lagu darin oo muujinaya qaraxyo aad u waaweyn oo ka dhacay Isfahan. Ilo Mareykan ah ayaa sheegay in weerarka lagu isticmaalay tiro badan oo ka mid ah gantaalada iyo hubka loo yaqaano penetrator munition, kuwaas oo awood u leh in ay jebiyaan dhismayaasha aadka u adag ka hor inta aanay qarxin. Dhinaca kale, kumanaan qof oo taageeraya dowladda Iran oo isu soo baxay magaalada Karaj. Kumanaan qof oo u dhashay dalka Iran ayaa isu soo baxay magaalada Karaj si ay u muujiyaan taageeradooda ay u hayaan dowladda iyo ciidamada qalabka sida ay sheegtay telefishinka dowladda Press TV. Muuqaal ay baahisay warbaahinta waxay muujinayaan dad badan oo calanka Iran lulaya kuna dhawaaqaya halkudhiga ah geesinimo iyagoo maraya wadooyinka magaalada Karaj oo ku taala galbeedka caasimadda Tehran. Isu soo baxan ayaa dhacay kadib markii koronto go'aan ballaaran laga soo sheegay Karaj iyo gobolka Alborz province kadib weerar waxyeeleeyay xarumo koronto. Warbaahinta dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in banaanbaxyo la mid ah lagu qabtay caasimadda Tehran iyo magaalada waqooyiga galbeed ee Ardabil habeenkii Isniinta ah. Israa'iilna waxay sheegtay 4 askari oo kale ayaa lagu dilay koonfurta Lubnaan. Ciidamada dalka Israa'iil ayaa sheegay in 4 askari oo kale lagu dilay dagaalada ka socda koonfurta Lubnaan. Dadka dhintay waxaa ka mid ah 2 askari oo da'doodu ahayd 21 sano, 1 askari oo 22 sano jir ahaa, iyo askariga afraad oo aan weli magaciisa la shaacinin maadaama magaciisa aan weli loo ogolaan in la daawaco. Tan iyo 2 Maarso ugu yaraan 10 askari oo Israa'iili ayaa lagu dilay koonfurta Lubnaan xilli Israa'iil ay ballaarinayso weerarkeeda iyo duulaanka ay ku wado ama ay ka wado dalkaasi. Dhinaca kale, madaxda golaha khubarada Iran oo ka tacsiyadeeyay dilkii Tangsiri. Warbaahinta dowladda Iran ayaa horey u sheegtay in aaska taliyihii ciidanka badda ee ilaalada kacaanka IRGC Admiral Alizar Tangsiri oo lagu dilay weerar ay Israa'iil fulisay. Gudoomiyaha golaha khubarada Iran Mohammad Ali Mafahidi
Karamani ayaa tacsi u diray qoyska iyo shacabka Iran isagoo sheegay in geerida Tangsiri ay tahay bog kale oo ka mid ah geesinimada ragga halyeeyada ah ee Iran. Wuxuuna sheegay in Tangsiri uu noloshiisa oo dhan u huray difaaca xuduudaha badda ee dalka, isla markaana uu ka shaqeeyay horumarinta tiknoolajiyada dagaalka badda si looga hortago cadawga Iran. Karamani wuxuu intaasi ku daray in shahiidnimada Tangsiri ay Iran u tahay sharaf iyo karaamo, ayna si adkeyn doonto midnimada shacabka Iran ee ka dhanka ah waxa uu ku tilmaamay quwadaha kibirka iyo gardarada ku haya dalka. Geesta kale, koronto la'aan ka dhacday Tehran oo ay sabab u tahay waxyeelo gaartay xarun koronto. Wakaaladda wararka Iran Fars News Agency ayaa faahfaahino dheeraad ah ka bixisay koronto go'a ka dhacay Tehran. Wakaaladdu waxay sheegtay in koronto go'a uu yimid kadib markii qashin iyo burbur ka dhashay qaraxyo ay ku dhaceen qalabka soo gelinta ee xarunta korontada oo ku taala bariga Tehran. Waxayna intaasi ku dartay kooxo farsamo oo ka tirsan waaxda korontada ayaa hadda ku sugan goobta, waxayna ku howlan yihiin sidii korontada loogu soo celin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Mucaaradka Israa'iilna waxay dhaliileen miisaaniyadda cusub ee Netanyahu. Baarlamaanka Israa'iil ayaa ansixiyay miisaaniyadda sanadlaha ee dowladda, taas oo u suurtagelinaysa in xukuumadda Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu ay u sii shaqeyso ilaa iyo xilliga dayrta. Hase yeeshee, hogaamiyaasha mucaaradka ayaa si kulul u dhaliilay, iyagoo sheegay in lacago badan la kordhiyay ama loo kordhiyay bulshooyinka Yahuudda ultra orthodox xilli dalka uu wajahayo kharashaad aad u sareeya oo ka dhashay dagaalka Iran iyo saameyntiisa. Haddii aan eegno dhinaca kale, Israa'iil oo meelmarisay sharci dil toogasho ama daldalaad ah oo lagu filinayo Falastiiniyiinta loogu helo weeraro dil sababay. Baarlamaanka dalka Israa'iil ayaa Isniintii meelmariyay sharci dhigaya in ciqaab dil daldalaad ah ay noqoto xukunka caadiga ah ee lagu rido Falastiiniyiinta ay maxkamadaha militariga ku helaan weeraro sababay dhimasho. Tallaabadan ayaa la sheegay in ay fulinayso ballan ay horey u qaaday xulafada midigta fog ee Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Sharcigan cusub wuxuu khuseeyaa oo kaliya dadka lagu helo dambiga dilka, kuwaas oo weeraradooda lagu fasiray in ay ujeedadoodu ahayd in la soo afjaro jiritaanka Israa'iil. Dhaliilayaashu waxay sheegayaan in tani ay si dhab ah uga dhigan tahay in ciqaabta dilka lagu fulin doono Falastiiniyiinta, balse Yahuudda Israa'iiliyiinta ee gala dambiyo la mid ah aan lagu fulin doonin. Sharcigan ayaa dhaliyay dhaliil iyo cambaareyn caalami ah xilli Israa'iil horeyba loogu dhaliilay rabshadaha sii kordhaya ee ay degganayaasha Yahuudda ay kula kacayaan Falastiiniyiinta ku nool daanta galbeed iyo sidoo kale dagaalka ay ka wado Gaza. Sharcigu ma ogolaanayo cafis. Qodobada sharciga waxaa ka mid ah xukunka dilka ee lagu fuliyo daldalaad muddo 9 maalmood gudahood ah kadib marka xukunka la rido. Inkastoo mararka qaar ay dib u dhac yar la ogol yahay, haddana ma jirto wax fursad ah oo cafis ama raaligelin rasmi ah lagu helo. Sharcigu wuxuu sidoo kale ogolaanayaa in xukunka dilka lagu bedeli karo xabsi daa'im, laakiin taasi waxay dhici kartaa oo kaliya xaalado gaar ah oo aan si cad loo qeexin. Israa'iil waxay ciqaabta dilka joojisay dambiyada dilka sanadkii 1954. Qofkii kaliya Israa'iil lagu dilay kadib maxkamad rayid ah wuxuu ahaa Adolf Eichmann, oo ka mid ahaa maskaxdii ka dambeysay xasuuqii Naaziga ee loo yaqaano Holocaust, waxaana la toogtay 1962. Maxkamadaha militariga ee ka shaqeeya daanta galbeed ayaa horey u lahaa awood ay ku xukumi karaan Falastiiniyiinta dil, balse ilaa iyo hadda weligooda ma fulin xukun noocaas ah. Ben Gvir oo horseeday sharcigan waxaa si weyn u riixaya wasiirka amniga qaranka Israa'iil Itamar Ben Gvir oo ka tirsan garabka midigta fog. Intii uu socday ololaha ansixinta sharcigan, Ben Gvir wuxuu xirnaa biino qorta lagu sudho oo qaab xarig ah daldalaad u eg. Marka sharcigu marayay baarlamaanka ayuu yiri, maanta waa maalin cadaalad u ah kuwii la dilay, sidoo kalena waa maalin cabsi gelin u ah cadowga. Qofkii doorta argagixiso wuxuu doortay dhimasho, ayuu yiri. Falastiiniyiinta oo sharciga diiday. Madaxweynaha Falastiiniyiinta Mahmoud Abbas ayaa si kulul u cambaareeyay sharcigan isagoo ku tilmaamay mid jebinaya sharciga caalamiga isla markaana loogu talagalay in lagu cabsigeliyo Falastiiniyiinta. War ka soo baxay xafiiska ayaa lagu yiri, sharciyadan iyo tallaabooyinkan ma jebin doonaan rabitaanka ee shacabka Falastiiniyiinta, mana wiiqi doonaan adkeysigooda. Waxaa kaloo lagu sheegay in Falastiiniyiintu aysan ka hareynin howlgalkooda
ama halgankooda ay ku doonayaan xorriyad, madax banaani iyo dhismaha dowlad Falastiini ah oo madax banaan, iyadoo bariga Qudusna ay caasimad u tahay. Kooxaha hubeysan oo Falastiini ah sida Hamas iyo Palestinian Islamic Jihad ayaa ugu baaqay Falastiiniyiinta in ay weeraro qaadaan si ay ugu argutaan sharcigan. Ugu dambeyntii 3 askari oo ka tirsanaa ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa lagu dilay Lubnaan, iyadoo duqeymaha Israa'iil ay si xoogan u garaacayaan koonfurta dalka. 3 askari oo ka tirsanaa ciidamada nabad ilaalinta United Nations kana soo jeeda dalka Indonesia ayaa lagu dilay 2 dhacdo oo kala duwan oo ka dhacday koonfurta Lubnaan. Dhacdadan ayaa timid kadib toddobaadka dhamaadkiisa, kaas oo ay ku dhinteen wariyaal iyo shaqaale caafimaad oo lagu dilay duqeymo ay fulisay Israa'iil. Ciidanka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee loo yaqaano United Nations Interim Force in Lubnaan, marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano UNIFIL, ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 2 askari la dilay Isniintii kadib markii qarax aan la garan halka uu ka yimid uu burburiyay gaari ay wataan meel u dhow tuulada Bani Hayyan ee koonfurta Lubnaan. Qaraxaas wuxuu sidoo kale dhaawacay 2 askari oo kale. Dhacdo kale oo ka dhacday habeenkii Axadda ilaa iyo Isniinta ayaa askari kale oo Indonesian lagu dilay kadib markii gantaal ama madfac ku qaraxay meel u dhow saldhig ay ciidamadaasi ku lahaayeen tuulada Al-Jid Al-Qusayr ee koonfurta Lubnaan. Qaraxaas waxaa sidoo kale si daran ugu dhaawacmay askari kale oo nabad ilaaliye ah. Geerida askarigan Axaddii ayaa noqotay kii ugu horeeyay ee uu ka dhaca ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay tan iyo markii uu qarxay dagaalka cusub ee u dhaxeeya Israa'iil iyo ururka hubeysan ee Lubnaan ee Hezbollah. Dagaalkaas oo bilowday 2 Maarso. Afhayeenka UNIFIL Candid Ardail ayaa tiri, "Labadan dhacdo waa 2 arrimood oo kala duwan. Waxaan u baaraynaa si gooni ah." Indonesia oo cambaaraysay dhacdada, wasaaradda arrimaha dibadda Indonesia ayaa Isniintii sheegtay in askariga dhintay uu ahaa muwaadin u dhashay dalkaasi, isla markaana 3 askari oo kale ay ku dhaawacmeen madaafiic si dadban ugu dhacday. Haddii aad halkan la soo gaartay, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa daawashada iyo la socodka warbixinadeena iyo wararkeena. Mar kale waxaan ka codsanaynaa, haddii aad hilmaantay muuqaalka, fadlan like noo saar oo la wadaag asxaabtaada. Tan iyo intaan tabinteena xigta aan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo amaano Allah.